halkan waxaa goordhow ka furmi doona kulanka wadatashiga miisaaniyadda 2026 waxaana ka soo qaybgalaya xubno matalaya maamul goboleedyada qaybahooda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha. sidoo kale kulankan waxaa ka soo qaybgalaya mas'uuliyiin aqoon-yahano iyo sidoo kale qaybaha bulshada ee ay qusayso arrintan. kulanka waxaa soo qaban qaabisay wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya. waxaa sidoo kale mas'uuliyiin iyo aqoon-yahano dhinaca horumarinta dhaqaalaha ah ayaa ka soo qaybgalaya munaasabadan, waxaana sidoo kale laga wada hadli doonaa miisaaniyadda dhaqaalaha ee 2026. shirkan oo socon doona muddo 2 maalmood ayaa lagu gorfeyn doonaa horumarka maaliyadeed ee 2026 iyadoo la filayo in ay isfaham guud iyo wada xaajood dheer kadib in ay ka soo baxaan nuxur quseeya miisaaniyadda 2026 ee dowladda Soomaaliya.